xeebta galbeed ee qaaradda Afrika ayaynu markan tegaynaa, gaar ahaan dacalka koonfureed ee gacanka Guinea iyo badda Atlantiga, inagoo ku warinaynaa xaqiiqooyinka dalkan hodanka ku ah dhaqankiisa gaboobay iyo isku milanka bulshooyinkiisa kala sanjiga ah. Waa jamhuuriyadda Ghana oo docda galbeed xuduud kala leh Ivory Coast, Burkina Faso waqooyi xad kala leh, Togana dhinaca koonfureed. dalkan oo ah kan labaad ee ugu dadka badan galbeedka Afrika. tirada dadkiisu hadda waa 34 milyan oo qof. caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalkaasina waa Accra. falowda haddaad bogan ku cusub tahay, uu qeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Ghana kaga weninayno. 1. Ghana waa dalkii ugu horreeyay wadamada saxaraha ka hooseeya ee xorriyadiisa qaatay. Ghana waxaa gumaystay boqortooyadii Ingiriiska ilaa dalkani xorriyadiisa ka helay 6 Maaj 1957. xorriyadaasi oo uu dalkan ku hogaamiyey madaxweyne Kwame Nkrumah. xorriyadda Ghana goortaas waxay guul weyn oo ku dayasho leh u ahayd wadamo badan oo Afrika ah, kuwa oo madax bannaanidooda u dagaalamayay. dhiirigelinta Ghanana waxa ay horseeday in dalal badan oo xitaa dalkeenu ku jiro ay xoroobaan sanadihii xigay. 2. macnaha magaca Ghana. magacan oo afka Sooninka ah Ingiriiska waxa uu ku noqonayaa Warrior King, boqorka dagaalyahanka. waxaana la bixiyay markii dalkani xorriyadiisa helay 1957. isirka magacu waxa uu ka yimid boqortooyadii Ghana ka talinaysay qarniyadii 6 ilaa 13. boqortooyadaas oo ku caan ahayd awood military iyo quwad hogaamineed oo ay ku maamuleysay waqti dheer wadamada galbeedka Afrika badankood iyo kuwa saaran badda Mediterranean-ka. 3. dalka kaymaha, xeebaha iyo xayawaanka ayaa loogu yeeraa Ghana. oo dalkani waxa uu caan ku yahay kaymo roobadyada waaweyn, jasiiradihiisa qurxoon, xeebihiisa waaweyn ee dhinaca waqooyi, iyo duurjoogtiisa faraha badan, kuwa oo sababay in Ghana qayb ka noqoto wadamada Afrika ee dalxiisayaashu tagaan marka laga yimaado isdhexgalka bulshooyinkiisa ee sirrada badan. sidoo kale Ghana waxa ku nool sirro badan oo duurjoog ah. 4. Ghana waa dalka labaad ee soo saara miraha siirka la yiraahdo cocoa. haddaadan horay u maqal siirkan, waxaa laga sameeyaa chocolate-ka, qayb ahaan cabitaanada iyo flavors kale. dalka koowaad ee miraha cocoa soo saara, halka Ghana ay soo saarto in ka badan 25%, kaasoo ka dhigan in dalagaasi yahay wax soo saarka koowaad ee beeraha Ghana. 5. cocoa kaliya ma soo saarto Ghana waxay sidoo kale hodan ku tahay saliidda ceeriin, dahabka iyo minerals kale. sanadihii dhawaa industrieska saliidda ayaa dalkani door weyn ku yeeshay, waxaana xogtu warisay in maalintii ay 200,000 oo barmiil soo saaraan ceelasha saliidda ee dalkani, taasoo kaalin weyn ku leh koboca dhaqaale ee Ghana. gold iyo diamonds ayaa sidoo kale dalkani ka mid ah khayraadiyada uu hodanka ku yahay. 6. dadka ku nool Ghana waxay u qaybsamaan in ka badan 100 isir oo kala duwan. oo mid kale oo dalkani caan ku yahay ayaa ah kala duwanaanshaha sinjiyadaha dadkiisa. in ka badan 100 isir oo kala duwan ayaa halkan ku nool. isiradaas oo sidoo kale haysta caqiidooyin kala duwan, kuwa oo u badan Christianity-ga iyo Muslim. afafka, isirada, dhaqanka iyo caqiidooyinka kala duwan marka laga yimaado Ghanaiska, waxaa mideeya hal qodob oo ah inay wada yihiin Ghanaians. caqiidada koowaad ee ay haystaan dadka ugu badan wadankani waa Christianity-ga. diinteena Islaamka ayaa ku soo xigta. caqiidooyin dhaqameedyo ayay sidoo kale haystaan in badan oo ka mid ah dadka dalka Ghana. 7. Ghana waa dalka labaad ee ugu nabadgelyada fiican Afrikada saxaraha ka hooseysa, sida ay warisay Global Peace Index 2022. Ghana waxaa ka horeysay jasiiradda Mauritius oo kaliya marka laga hadlayo dhinaca nabadeeda, waxaana xogtani dalkan gelisay kaalinta 4aad ee wadamada adduunkan ugu nabadda fiican, kuwa oo ka kooban 163 wadan oo adduunka oo dhan ah. 8. Ghana waa mid ka mid ah dalalka Afrika ee dimuqraadiyaddu sida fiican uga hirgashay. oo dalkani siyaasad ahaan waa dimuqraadi aan qalalaaso siyaasadeed ka jirin, kaasoo leh xisbiyo kala duwan. inkastoo weli dimuqraadiyadiisu curdan tahay, haddana dalkani waxa uu ka mid ahaa sanadihii dambe kuwa doorashadiisa xisbiyadu ku baratamaan, balse isbedelada nabdooni ka dhacaan, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah wadamada tirada yar Afrika ee nidaamka dimuqraadiga ahi ka hirgalay.